بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، إن شاء الله تعالى وحوغا كوبان بين كورن دونا كيفية استقبال رمضان. أما بشان رمضان يقفك مسلم كاسيدا اللوغا باهيين وديار كروبه. حين كترنا شعبان أيام كدبنا إن شاء الله تعالى رمضان بين قارنا. رمضان وبال الصومه وبالقيام الليل لوكعه وبالنصوص تكسر ارتال عتق من النار. إن شهادة لها لقفك إن نارت إلهي كحريي وإن شركيس النار تابا دون وبال داغ قفك مسلم كو برطية وحبحنته وبالقفك اسطو مسلمي المصالحة مع الله أو الرجوع إلى الله وربي يقول نقض سبحانه وتعالى. وقبل نبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام سدادتك اللو ترغيبين يلو علي سيني يا الله سبحانه وتعالى إن الباب دا جنة الله فره الباب دا النار تنا لحده وحيابها دتك عرقلة دي جنة اسكهر تاقه أما النار تكدر قيا كتخن تخينا وابالستي الشياطين تواوين وقوين يغنا إن لحده وبالروح دقفك مؤمن كاي طاهر نقطه آثارتي يذنوبتي والسيدية ما حنبار سنايا سنة كردنك سوداعي سينا ربي كدتشيو إذا وحي سويدين تلي مركاسين وقدي أرقروبينا حالينا قربا انت ugu badan dadku qolana dee maba oga allah hanuuniye inta ogina waxa laga yaabaa inuu diyaar garowgoodu noqdo guriga raashin fiican in la dhigo, shaqada inuu iska yareeyo, hurdada iyo cunadaba inuu badsado oo waqtiga cunadu baynu beddelaa oo halkii maalintii wax laga cuni jiray baynu u raraynayno maxay habeenkii cunno. markaad eegto guriga cunada la dhigo bisha kale iyo bisha ramadaan cunada la dhigo marar badan waxa badan maxay ramadaantii cunada aynu qaadano. al-asluna maaha cunaynaynu diyaar garowno, waayo maanta dunida inteeda badan caafimaadku waxay isku raacsiisan yihiinba in la soomo inuu caafimaadku ku jiro oo ah in caloosha la nasiyo oo cunadu markay yaraato waxay dhaahdaan beerkaagu wuxuu waqti badan u helayaa sumuumtii jidhkaaga ku jirta inuu safayn karo. waxa cunadu markay yaraato uu jidhku helayaa bay dhaahdaan renewal, old cells kodham inay dhintaan jidhka bay dhaahdaan unugyada daciifka iyo unugyada gaboobay wuu dilaa unugya cusub baa dhasha markaa qofku renewal caafimaad buu ka qaadaa. walidaalika baa maanta miisaankaa dhinma kanbaa dhaca xanuuno badan bay ku daweeyaan ilaa ay xanuuno psychotica ku daweeyaan maanta oo loo isticmaalo in qof 36 maalmood ama wax ku dhow la soomiyo iktiaabiyada iyo xanuunada qaarkood in lagaga daweeyo. maanta dad badani waxay u soomaan inay jidh qurux badan yeeshaan, dadka qaar waxay u soomaan in wasniga iyo miisaanka iska yareeyaan, dadka qaarkood waxay u soomaan lilidiraab, dowladda iyo wixii laga cabanayay in xabsiyada iyo meelahaas oo kale in cunada laga soomo idiraab iyadoo ah. laakiin waxaynu isweydiinaynaa qofka muslimka ahi maxaa asal ee uu soomaa? waxani waa tabac, yani inaad caafimaad hesho ama inaad kan heshaa maaha asalkii soonka. asalka soonku waa maxay? yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun baa ilaah yidhi. kuwa iimaanka laga helayow
soom baa laydinku waajib yeelay sidii ummadihii idinka horreeyayba loogu waajib yeelay cibaadaadka qaarkood waa qadiim mundu qidami zamaan intii umamku cibaadaad la wada faray baa jira hayaakil alcibaada wa kayfiyatiha baa kala gedisnaatay مثلا صلاة وعبادة قديمة صومك وعبادة قديمة حجك وعبادة قديمة والغا يا بقاب كلو غدن يا من لو سمينين كلا قديسين يهين نبي كستا تشريعي لسوسي انه كقديسين لكن اصول العباده اركان الاسلام كلا يداين طبضا وعبادات قديمه وقران كوينات الماميه صومك الهي وحينا لي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم صوم بليدكم واجب يالي sidii loogu waajib yeelay kuwii idinka horreeyay maxaa laynoogu waajib yeelay ma ciqaaba oo inta layna ciqaabaaba dembiga laynagaga maydhaya maya ilaahay aayaadka dambe wuxuu leeyahy yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra ilaahay wuxuu idinla rabaa inuu noloshaba idin fudaydiyo soonkaba waxaa la idin faray in noloshu idin fududaata baa la leeyahy culaysna rabbi idinlama rabo idan soomka culays kuma jiro haddii sidii sharcigu uu sheegay loo samaynayo waxaa ilaahay ina farayaa sababta waa maxay lacalakum tattaquun ina mansilatu taqwa gaadhaan aslu lcibaadaba mansilatu taqwa bay ku gaadhsiisaa yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacalakum tattaquun baa ilaahay yidhi wardadow rabbigiin caabuda idinka idin abuuray iyo kuwii idinka horreeyayba maxaa u caabudaysaa lacalakum tattaquun kayta tattaquun haddaba ayuha alaxiba waxaynu u baahanay ramadaan in loo diyaar garoobo munaafiqiintii ka hadhay dagaalka ee dabeetana cudurdaarka nebiga ula yimid dagaal maxaa la yidhaha tabuuk markii loo baxayey tabuuk waa dowlad weyn baa dagaal lagala hortegayay oo dowladdii romanska iyo dadkii raacsanaaya waktiguna wakti kulul buu ahaa oo waktigan khaliijka 40 iyo 50 ka dhacaan yani wakti samara xagaaya bay ahayd dabeetana bil wakti ku dhadhowna waa la lugeynaya xagaaga marka ragii daacadda ay ka ahaydna way u diyaar garoobeen inay lugta iyo wuxuu fuuli lahaa iyo bisha siduu socon lahaa kuwii waxay fuulaan waayeen mu'miniinta ahaa waa kuwii nabiga u yimi iyagoo ooyo la ilaahay rasuulkiisa wax nasaar ma haysano geel iyo farda iyo waxaanu fuulo toona ma haysano inaanu kaa hadhnana ma rabna waa kula dagaalgalaynaa ee waxaanu raacna nasaar qolaa jirtay munaafiqiin oo iyagu maadaama noloshu ay adkaatay xagga kale marka laga eegana waa waqtiga timirtu bislaato oo beerahay lahaayeen carabtu waqtigaasay u bislaataa marka nimankii munaafiqiinta iyagu marmarsiiyay sameeyana way hadheen ilaahay oo qadiyadooda ka warramaya baa wuxuu yidhi walow araaduu lkhuruuja laa cadduu lahu cudda baa ilaahay yidhi hadday marka horeba iraada doonitaan hadduu jiray inay rabaan inay baxaan way u diyaar garoobi lahaayeen baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala ee diyaar la-aantu waxa ay tilmaamaysaa inaanay rabin maxay inay baxaan haddaba soomku ayuha alaxiba wuxuu inaga rabaa diyaargarow wuxuu inaga rabaa diyaargarow ah inaynu u diyaargarowno mansiladii loogu talagalay qofka mu'minka ah soonku inay gaadhsiiso inayna gaadhsiiso sida awgeed ayaa salafi lumma markay ramadaantu soo dhowaato waa ku farxi jireen dee saan ugu farxinba qofka muslimka ahay rukun arkaantiisii diinta abaa ku soo socdee soomay rumaysnin islaamkuba inuu 5 rukun ku tiirsan yahay 5 asaloo waaweyn buu leeyahay 5ta asal maxaa ka mid ahaa الشهادة هي الصلاة هي الزكاة هي صوم هي حج إذن ركن كم مدى أركان الإسلام كي مركو صوص صعدة قف مؤمن كي ودي القروبية نبي محمد عليه الصلاة والسلام الصحابة دي سووا بشارين شري حديث الصحيح السنن النساء كي لوح النبي يقول أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة هي خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم نبي صلى الصحابة الله الله رضوان الله عليهم أي نبي صلوات الله وسلامه وحليه ورياده رمضان بايدين تيمو نبي قولي
وبالبركيسنة رمضان وبركيسنتي دمانتي إلهي وحيد كو واجب يليبون بقول لي صون أبابد السماء أما البابد الجنة والله فراه أبواب السماء والله فراه ماشينا لا أقبليا أبواب الجنة والله فراه يدل لي كل الرجالين أبواب الجحيم أنا أما جهنم أنا والله حدا شيطان مدى وين إذا كين فوقينا يورنا نواد كقبنا يا بيش أسبال ليلي شياطين توا إجازة كومبلسري ليف بالاسيا كوا وين أردن واحدين بيش تانينا هبين بانا كتشربو نبغو يري كم بلاد كخير بدن كم بلاد عبادات وينتي ودوري سيدات صنادات هبين كخير بدن باكرة وبيش كميدا من حرم قفك لقى منعيه هلي ويا خير كذا رمضان تامه هبين كخير كذا قفك ويا فقد حرم كاس خير هلي ما يبالي هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو بشارين يا صحابة يبو بشارين يا وحنو بشارين يا وقت هذا الله مدهينين وصاص عضو نمك الدجارته السيسن الكوحيبية وقت كاستقلب كي سيبيان مثلا مركي عيد الربانين وحيبيان عيد قال هذا ما عيد مسلمان نقطه عيد waxa socona yo dhan bay soo diyaariyaan waxaan u arkaa waqti yar oo aan badnayn oo aad loo faa'iidi kara inuu jiro faa'iidooyin badan la helayo qofka muslimka ee marka bisha tani waa bilaad khayr badan waa bil qofka muslimkii مع الله جملة وكل باع مشترينيه وبلا دالين كرتو دوري سيدات سندات بد هبين دالين كرتا دوري سيدات سندات عمري وحاد عبادة الصبين كري لهاي أيها هبين كم إذا رمضان تات صبين كريسا إذا وبلا أن وقت جا أنتي سكالك ولا مدهين ساد رادة قفك مسلم كيو ديار قروبية بشوين إذا دو حقوت المامية إن لبن نينو الصحابة كم إذا هي سوهي جرودي دبيتنا طلحة بن عبيد الله وصحابي اللي ورنشري بي لدقه لبضن وي جهاد قالين مركا اي جهاد قالين ايام ميدي شهيدنا ما قاطي متكي كاله ولا من انه صو اسلام واسلام نمدودو في عناتي والنبي قال دغال قالي مid با دغالدي شهيد كو نقدي كي كلنا سنة كلوسي نولاد بيشي كو حكتين رمضان نواد شوقوا دبتنا سعادي وقيريود طلحة بن عبيد الله صحابي اللي ورنشري ايها وحو يري الريان اركي الرياد السيدة با قد تكون حقا وقد تكون خزعبلات يعني النبي عليه الصلاة والسلام حقوت المامية النبدي وحكا هاري وحكا ميدا محي الرؤية الصالحة مركا الرياض ودبنا والنقطة باطل يوسكا دبنا والنقطة سحابة نقول الرياضي وحكو الرياضي إيادو جندي أيجليان دبت أنا صدق حدا يضع محيم بوليا أنا إيا لبدي نينا كالي لبدي نينا كالي كيد دنباد دنتي يعني جهاتك كود منين إيا ليدي سوغل كيبا هله الرئيسية هرقالي دبتنا كي شهيد كهابا كدبا قالي أنا إسيري قالوا هذه ولي ما يقاري وقتها قيبا ليدي بويدي مركا هو صوب براروغي رياضي بافافتي نبي قال الله شيغي نبي عليه الصلاة والسلام حكوية محاولة يا بيسان وإلى إلهي رسول كيسيو لبضا ننكي أنو سلاحين دوا الددال بدن شهيدو بي كي كلا جنة كهر قالي تبتنا نبي حكوية أليس قد مكث هذا بعده بسنة وكان ميانو سنة كان لول دنبين من نبي حكوية مركاسال ليدي ها وكان لول دنبي وميانو رمضان تي دنبي سو قاعدين من نبي حكوية هاي وسو قاعدين بالليل وسو مسومين أو مصلادين أو مساجد كم كمتو كان سنة من نبي حكوية عليه الصلاة والسلام مركاسال ليدي ها فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض من نبي حكوية حديث كان ابن ماجه سور إنه علماء الصحيح قلت الماما يعني وحنا بقول أي
labadooda ajarkooda inta u dhaxaysa cirkiya dhulka inta u dhaxaysa in leeg baa u dhaxaysa yacni ninkii shahiidnimada qaatay sanadkii hore kani muxuu kaga badiyey acmaashii uu samaystay sanadkii uu noolo ay ka mid ahayd uu nebigu leeyahy war ninku miyaanu ramadaan soo gaadhin aanu kaasi sii maqnaa soo kani ma joogin buu nebigu leeyahy oo ramadaan taa ma tukanayno ma soomayno waa kan sida awgeed axaadiis badan baynu nebiga ka haynaa uu nebigu leeyahy qofka ramadaan soma iimaanan waxtisaaban isagoo iimaan iyo ixtisaab yacni mu'minan billaahi si dhaba u rumaysan wa mukhlisan ku dhinta camalkaa soonkaa sameeya gufira lahu maa taqadama min denbi dembigiisa horaa la dhaafaa buu nebigu yihi waa ninka sooma waman qaama ramadaan buu nebigu yihi ninka habeenka ramadaan istaagana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi haddana nebigu wuxuu yihi waman qaama leylata alqadr habeenkaa gaarkaa ninka isa sii taaga iimaanan waxtisaabanna isna dembigiisii hore waa la dhaafaa taa macnaheed waxa weeyaan ayuha alaxiba ramadaan waa fursa waa tijaara raabixa bilaa shak waa tijaara ilaahay lala baac mushtaraynayo oo maxaa lagula baac mushtaraynaya ilaahay biliimaani walacmaali asaalixa iimaan iyo camal suuban waa fursad qof kasta oo muslim oo dembi ku raraa uu dembiga iska rogi karo waa misfaa yacni waa xamaamu ruuxiya waa meel lagu qubaysto lagaga qubaysto wixii dembi ku soo galay imise ishaadu wax xun aragtay imise dhegtaadu wax xun maqashay imise carabkaagu wax xun ku hadlay imise xisaabi uun waxaasoo dhan qaabkii la ysaga maydhi lahaa weeyaan sida awgeed buu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam maalin buu mimbarka fuulay isagoo leh aamiin 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 saxaabadii waxay dhahen maa kunta tasnacu haada ilaahay rasuulkiisiiyo si aan maad yeeli jirine maanta maxaa soo kordhay mimbarka markaad fuulayso si caadi umaad u fuuli jirtay laakiin intaad xabad fuushay inaad aamiin tidhahdo kala fu aamiin oo aamiin tidhaahdo maxaa isbedelay bay nebiga weydiinayaan calayhi salaatu wasalaam dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi jibriil baa ducaynayay ama saan idhaahna habaartamayay aniguna aamiintaan u lahaa buu nebigu leeyahy nebi maxamed iyo jibriil maxay isugu tageen ee midna uu ducaynaya midna aamiin u leeyahay nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam jibriil baa wuxuu yidhi ragima anfu cabdin dakhala calayhi ramadaanu falam yugfar lah ragima anf waa eray carabta ku isticmaasho sankiisaa boodhoobaya ala soomaalida ku tara afka u dhac afka ha u dhaca buu leeyahay ninkay ramadaan u soo gashay ee haddana dembigiisa la dhaafi waaye afka ha u dhaca buu jibriil leeyahy carabtu waa sanka ha u dhace markaasuu nebi maxamedna leeyahay aamiin jibriil baa haddana wuxuu yidhi afka ha u dhaco ninka maxay agtiisa laygu sheego nebi maxamed oo agtaada inta lagu sheego calayhi salaatu wasalaam kugu saliyi waaya nebiga ku saliya dabeetana nebigu aamiin buu ku yidhi markaasuu haddana wuxuu leey ragima anfu cabdin adraka waalidayhi aw axadahuma afka ha u dhaco qofka labadiisii waalid soo gaadhay ama mid iyagoo yacni gaboobay falam yudkhil iljanna oo janno ku geli waayey labadiisii waalid samafalka iyo axsaanku uu samaynayo kaasina afka ha u dhaco xadiidkani wuxuu tilmaamayaa 3 camal oo janno lagu galo midi waa waalidka iyo ixsaanfalkooda midna waa salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam ka kalena waa ramadaan nimay u soo gashay oo haddana dembigiisa la dhaafi waayey yani 3 qof ee la habaarayo midi waa ninkii nebi maxamed ku salli waayey midna waa ninkii waalidkii u samafali waayey ka saddexaad waa maxay qof ramadaanna ay u soo gashay ramadaanna ka dhammaatay isagoo aan weli dembigiisa la dhaafin yacni ma istafaada min ramadaani shay-a ramadaan aan waxba ka faa'iidin yacni ninka ramadaan wax ka faa'idi waaye man xurima khayruhaa faqad xurim buu nebigu leeyahy leylat lqadri iyo wixii ninka taa khayrkeeda laga xaaraam yeelay
khayrkeedu uu waayey kaasi khayr heli maaya buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam sidaa awgeed ayuha alxiba markaa waxay leeyihin waxaynu u baahanay inu ramadaanta u diyaargarowno oo ugu diyaargarowno sidii kow ilaahay dembigaaga u dhaafi lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa xadiidka muslim ku yaalla alsalawaat alkhams waljumca ila aljumca waramaضaan ila ramadaan mukafiraat lima baynahuna ida اjtunibat اlkabaa'ir xadiidkani wuxuu leeyahay salaadaha shanta ah iyo jumce ilaa jumce iyo ramadaan ilaa ramadaan mid waliba waxay tahay mukafiraat lima baynahuna labadaa dhexdooda wixii ahaa mid dembigooda lagu dhaafo ida اjtunibat اlkabaa'ir haddii dembiyada waaweyn laga fogaado yacni waxaa jira horta sakaa'irtu waa dunuubta ugu badan waayo marar badan waxaa laga yaabaa qofku hadduu qof noolba yahay de inuu kabiiradu ku dhaco xasuusto oo ilaahay uga toobad keeno sakaa'irta laakiin dadku waa iska wadaan sakaa'irta waa iska socotaa markaad masaajidka ka baxdo imisaad naag qaawan aragtaa imisaad wax kaa mamnuuca maqashaa imisaad t v aragtaa imisaad waxuun ku hadashaa imisaad halkeer fadhi ku dirarka tagtaa oo ama adigu aada wadaa ama iyagu ay wadaano aadna aad dhegaysanaysaa ila waa isla meeshuune yani haddii sakaa'ir la ururinayo waa haddaynu kabaa'irta kaba indhaqarsanno waa rarannay waagu markuu baryey ilaa iyo gabalku intuu ka dhacayay intaad ka seexanaysay dee intaa ama waad hadlaysay ama waad dhegaysanaysay intee khayr ahayd uun xisaabi saaka markaad soo kacday ilaa iyo caawa intaad seexanayso ama waad hadlaysay ama waad dhegaysanaysay mid hadlaya inteebaa khayr ahayd un isweydii markaa yani waxaynu garan karnaa sakaa'irta maalin walbayna fuulaysa intay taagantahy dhowr shay oo sakaa'irta lagu maydhaa baa laynoo sheegay waxaa la yidhi salaad ilaa salaadi way maydhaa salaada aad jamaca la tukato ninkii yidhi gabadh baa nukahday ee nebigu ku celceliyay muxuu nebigu ku yidhi war miyaad nala joogin markaanu salaada tukanaynay maye waa idinla tukaday buu ku yidhi ina alxasanaat yudhibna sayi-aat buu nebigu ku yidhi yacni salaad ilaa salaad haddaad salaadaha jamaca ilaaliso sakaa'irta u dhaxaysa way tirtirtaa jimce ilaa jimce ramadaan ilaa ramadaan waxaa laga yaabaa inaad su-aal isweydiiso oo haddii salaadan ilaa salaadan shantii salaadood maanta hadday tirtireen jimce ilaa jimca maxaa la tirtirayaa ilan maalin kasta shan baad soo tukatay haddii jimce ilaa jimca uu tirtiray maxaa ramadaan ilaa ramadaanta la tirtirayaa acmaashu kuwa saalixa ah acmaasha saalixaadka ah iyo acmaasha madmuumkaahiba aahaarteeda waxaa ka dhalanaya waa bixasabi camali alcaamil waa bixasabi istayfaa'i shuruudi alqubuul waxyaaba badan bay ku xidhantay tusaale maala nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam xadiidka xasanka culamada ku tilmaamaan ee abu daawud iyo nisaa-i iyo ibnu xibbaan iyo rag badani warinayaan ina arajula layansarifu wamaa kutiba lahu ilaa cushru salaatih midkiin baa tukada oo aan salaadiisa loo qorin buu nebigu yidhi 10 meelood meel mooyaane dabeetana nebigu wuu sii waday tusucuha thumunuha khumusuha sudus sii waday nebigu calayh isalaatu wasalaam ilaa nisfaha uu ka gaadhsiinay midkiin baa tukado salaadiisa leh 10 meelood oo meel ahaan 10%. mid kale tukado salaadiisa leh maxay 10 meelood marka loo qaybiyo yani tusuc mid baa leh thumun 1/8 mid baa leh maxay sudus 1/6 mid baa leh khumus 1/5 mid baa leh baa la yidhi rubuc quarter mid baa thuluth leh 1/3 ayuu salaadiisa leeyahay mid baa nisf leh nus oo waa maxay dee salaada waxaad leedahay
intaad ikhlaas tahay soo jeedo haddaa qalbigaaguba maqan yahay iska lahayd waday iyo ninkii salaadiisa xaadirka ahaayee wuxuu akrinaya garanaya u fiirsanaya soo jeeday dee isku ajar maaha labaduba salaad bay tukadeen laakiin salaadoodu waa maxay isku ajar maaha walidalik nabigu calayhi salaatu wasalaam ama qur-aankaba ilaahay wuxuu leeyahy waaqimi الصalaata طarafiya الnahaari wazulfan min alleyl ina alxasanaati yudhibna sayi'aat dalika dikra lidakiriin baa ilaahay yidhi salaada oog labada dacalee maalintii iyo habeenkii wax ka mid a ina alxasanaati yudhibna asayi'aat wanaagyadu ama xasanaadku waxay tirtiraan buu nebigu ayuu qur-aanku leeyahay sayi-aadka dalika dikra lidakiriin laakiin salaadaha iyo cibaadaadka iyo soonka iyo waxaynu samaynaynaa waxay ku xidhan yihiin wakhtiga la sameeyo kow oo awqaad waa kala fadli badantay makaankaa kala fadli badan meesha lagu sameeyo maalan salaadaad kacbada ku tukato iyo taad gurigaaga ku tukato haddee isuma dhowa ama masaajidkii nebi maxamed salaadaad ku tukato iyo taad meel kale ku tukataa dee isuma dhowa 1000 salaadood iyo 100 kun oo salaadood baa udhaxaysa waxaa la mid ah waqtiga salaada waqtigu markay soo gashay jamaca ilaalisay tukatay aad hadhow tukatay dee isku mid maaha salaada jamaca ku tukatay aad munfaridka tukatay isku mid maaha waxaa la mid ah xuduur alqalb sidaad xaadirka u ahayd salaadaad adoo maqan tukato ghaafila iyo adigoo mutayaqido xaadira salaadaad tukatay isku mid maaha waxaa la mid ah ikhlaaska مثل النبي عليه الصلاة والسلام حديث وحو تلمامه يميد آخرة ذنوب بدن انت الله قبصده للي وح عمل ما قرنيسا ومركز دنبه لا إله وأنا وح عمل وكلو ديراد وأسميه قرن ما يخيره وبطاقة لكين أيه بطاقة محاوق قرن توحيد لا إله إلا الله دي سباك قرن محمد رسول الله لكن ولا إله إلا الله مخلصا من قلبه ولا إله إلا الله نوع قارئة تاسا كفد الله صاريا دبتنا تاسا كعصلان يسوي كلا أردن وهدادتك لا إله إلا الله يريد من نار وحبك قلي ما ينمياه ما هو قليا قار بدون أصحاب لا إله إلا الله يبقى نار تقليا وقار شفاعة النبي محمد لك قصة صاريا وقار شفاعة ملائكة لك قصة صاريا وأخيرا إلهي سبحانه وتعالى وحكو حركة صاريا طبعا وحي توحيد كل انت نار كواري مايان لكن قلي مايان لما ورن كرو نار كواري مايان لكن قاربا جرى التوحيد انت كل انت انا نار تبقلين توحيد كيس وحكى لو دانو كعلسي هاي وحيلين واعمال القلوب باكل عسل ليس وحكا ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام وحينات الماما يا سلاده انو ينان السنين وحكالات الماما من اغتسل يوم الجمعة ولبس من احسن ثيابه ومص من طيب ان كان عنده ثم اتى الجمعة ninka maydha maalinta jimce ee dharka waxa uu fiican uu haysto soo xidha ila waa maalin ciideed jimcaha muslimku yahay ee dabeetana udug haddii uu haysto soo marsada ee dabeetana jimcaha yimaada ee aan dadka ka dul taltallaabsanin buu nebigu yidhi falam yatakhata acnaaqa annaas dadka aan jiidhjiidhin ee halkii ugu bannaan ee uu helo fadhiista oo tukada wixii alla u qoray inuu tukado dabeetana marka imaamku yimaado aamusa oo dhagaysta kaanat kafaaratan lima baynaha wa bayna jumcatihi alatii qablaha buu nebigu yidhi tani waxay kafaaro u tahay jimcadan iyo jimcadii ka horreysay wixii u dhexeeyey idan jimcada waynu wada nimi laakiin isku mid maaha jimcadeennu mid baa goor hore yimi oo la mid abuu nebigu yidhi sidii nin neefgeela sadaqadaystay ka ku xiga saacadda ka dambaysta baa nin neef saca sadaqadaystay neef lo ah ka ku xiga neef adhiya ka ku xiga digaagad ka ku xiga maxaa la yidhi xabad beeda dee ninka xabad beeda sadaqadaystay iyo ninka neefgeela sadaqadaystay ma isku meel baa salaadoodu dabeetana nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam haddaba إلهي وقرآن كله إنما يتقبل الله من المتقين
ilaahay waxa acmaasha ka aqbala dadka muttaqiinta qofba amal buu muttaqi ku yahay macnaheedu ma aha qof wada taqiya ba jiriya mid wada faasida waxa laga yaabaa camalkan isagoo ka xumaaday salaada hore iyadoo ka xumaaday salaadaada dambe inaad adigoo xaadir oo qalbigaagu soo jeedo fiican tukatid idan camalka intaad soo jeedabaad ajarkiisa weyn leedahay intaasaa inta dunuubta masaxaysa bay culimadu yidhahdaan marka salaadahaagii haddii la isu geegeeyay ay wada dhammayn waayeen oo jimcadaadii marka lagu daro ay haddana wada maydhi kari weyday ramadaantaadu hadday fiicnaato iyadaa maydhaysa wixii inta hore u taag weyday walidaalik haddii 11 bilood salaad khalkhala aynu soo tukanaynay ama jimce imaamkoo taaganuuna aynu soo fuulaynay soo galaynay masaajidka aan isku dayno bisha tani inay noqoto bishii aynu tirtiri lahayn wixii camal inaga tegay oo dhan wixii dunuub inaga dhacday horoo dhan bil aynu tirtiro waxaynu ramadaan qabanno laba shay baa ugu fiican mid waa inaynu dembiga iska maydhno midna waa inaynu darajaadka kor u korro ajarka aynu shaqaysanayna inaynu badinno mustaqbalka u dhiganno dembigii hore inaad iska maydhidoo nadiifisid ramadaan waad awoodi kartaa inaad ajarka biirisana markaad intaa maydhana waad ziyaada can dunuubaad shaqaysato na waad awoodi karaysaa si awgeed baa manqabada ramadaan ajarada ay leedahay waxaa ka mid ah nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidulqudsiga wuxuu ku sheegay ilaahay baa wuxuu yidhi kullu camal ibni aadama lah reer nabi aadam oo dhamme camalka shaqaystaan iyagaa leh ila siyaamu mooyaane aw ila sawm soonka mooyaane fa innahu lii waana ajzi bihi isaga anaa iska leh oo ka abaalmarinaya baa ilaahay yidhi dabeetana xadiidka wuxuu sii tilmaamayaa wasiyaamu junnatun soonku waa gaashaan dunuubta lagaga gaashaanto naar lagaga gaashaanto fa idaa kaana yowmu sawmi axadikum midkiin hadduu maalintiisii soonta joogo falaa yarfus yowmaidin walaa yaskhab yuu maalinta afxumo ku hadin oo yuu qaylinin hadday cidi ku caydana buu nebigu yidhi amase kula dagaalantana ajarkaaga ha iska dumine waxaad tidhaahdaa innii mru'un saa'im war waan soomanay ku dheh qofka ku caaya ama kula dagaalama innii mru'un saa'im ku dheh waladii nafsu muxammadin biyadih لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللسائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه حديث كان انت نوص عنان قدن لي وحويا إلهي باوح لي سبحانه وتعالى بن آدم كو عمل كيس دمانتي سقا اسكال صون تموياني صون تسيئني قالوا كأبا المرينية حديث كمعني سوية سي الله فسرية فسر هذا تربى علماء الشيعة لكن علماء بربا واحد هذا لبدا قول سفيان بن عيينة بوجود الدو ولبا لبدا قول مدبا نصوص تسير رجحيسة الإمام سفيان بن العيينة محدث كيل لورنشر الشيخ الإمام الشافعي رحمة الله عليه سفيان بن عيينة بوحوليه هي لبا قول لكن كصحة هذا نسكا قادرنا حويان صونكو أعماشك الأردن بني آدم كاسكاله وحانا إلى محي أجر محدود بيلادي أجر حدا يسمى أعماشك الأردن ميلادي صونك مو يعني حديث بانا ساعة دينسا الأصل أعماش حير با إلى هي ولقياه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها قفك حسنات سميسته وانو طبعا لابا يابا إلى هيري حسنات كستوات سميسته طبعا لابكت أي إلى كسينيا لكن انت سوى انت حق الله كوسي لكن هدي إخلاص كاغو بطو مال في عليك وقول عضو حسنات كقاركود بكبطو قاعدة إلى 700 تضواب بقول أو تشيرين لقول الله طبعا لابكو waa imisa haddii aad shilin la baxdo shilin kale lagugu daro waa imisa 100% soo maaha toban laabku markaa waa 1000% asal ilaahay waa qani
asal wuxuu inooga dhigay xasanadeenu 1000% baa u asala waa minimumka abtu waxay soconaysaa maxay 700 ضعف يعني 700,000% in lagu dalaco shilinkaagii 700,000 oo shilin inuu gaadhi karo kow liman yashaa ayuu ilaahay u dalacaa wallahu waasicun caliimna weeyaan haddaba soontu waxay culimmadu leeyihin xeerkaa way ka baxsantay soonku xeerkaa way ka baxday وحديث صحيح وحليه كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف قال الله سبحانه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به عمل كستوقف وسما استوى الله بيا طبعا شير إلا إيا تضوب غلو شير من فضل الله سبحانه وتعالى صونك مو يعني بالي أما صونك isaga ana iskale baa ilaahay yidho isagu waa gaar isagu markaa culimadu waxay leeyihiin anaa leeda idaafadatani waxay macnaynaysaa bay culimadu leeyihiin sirta ah inaanu iyadu ku jirin waxyaabahan uu xadaysan yahay ajarkooda ee ajarkeeda ilaahay uma garanaya walidalik ba mufassiriinta qaarkood waxay ku fasiraan aayadan quraanka ilaahay leeyahay inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisaab shahru sabrina waa la yiraahdaa شهر الصوم نوال هذا ودي صبر لما أنت بوقف كل إيمانية إنه عن المعاصي وعن الشهوات كصومه إنه على الطاعات كصبره هي وحي مشاكل يا آلام يا مقادير سوى قاعدين كصبره هذا بقى بشتني وبالأن ربنا لبا وح إنا نهله كو إن لهي دنبي قاعد نافه هذا ما هي إنه يد الدم بكررسانه dadka qaar baa bishatan musalsalaad iyo balaa bishii uu dambiga hore iska rogi lahaa mid cusub bilaaba ma aha bil uu qofka bini aadamka ay kaslaan noqdo bilaad marna hurudown marna ma aha waa bil qofka muslimka ay ijtihaad ku jiro waa qofka muslimka ay waa bil uu dadaalkiisa xadkii kama dambaystaha isku dayay inuu gaarsiiyo muxuu rabaa in ilaahay dambiga ka maydho wuxuu rabaa ajar inta ugu badan la inuu shaqaysto wuxuu rabaa inuu ku biiro min utaqaa'ih kuwa ilaahay naarta ka xoreynaya habeen walba naarta badh baa laga xoreeyaa bishatan oo dhan wadaaka fi kulli layla bu nabigu yidhi habeen walba ummadda muslimka qayb ka mid ah naarta laga xoreeya inaad u dadaasho sidii aad ugu biiri lahayd kuwa naarta laga xoreeyay إن الذنب كررسة معها ولذلك بقى عائشة مركز تدي إلهي رسولك يسيو هديبا إلهي هليشيان كبق مهبين كاسي ليلة القدر محان إله ضابي كتري نبي وحيدي واحد إله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني إله الذنب يقرقني إله يعفي حط كدو عيسى تهبين كاسي هنقطب النبي عليه الصلاة والسلام إله يعفي bishatan cibaadaadka la sameeyo culimadu waxay yiraahdaan markaa cibaadooyinkeedu uma dhigmaan xataa cibaadooyinka bilaha kale la sameeyo walidaalka ba mesela nabigu wuxuu leeyahay cimrada la cimraysto ramadaan gudaheeda تعدل حجة وفي بعض الروايات حجة معي رمضان إن تسو عمريسته حج بيقولي أنت حق أجر كمرك الله يقول نبي المامية أما حق الدم بالدافك أما وينده حج بيقولي أنت بالين روايتك قاركود بقولي بوح علي حج النبي محمد لحجتي حج ودن ماها حج وداد يرى عضي ماها حج النبي محمد لسعوتي أيه ولي أنت هذا وحي لنا أيها الأحبة بشتني وبال وقفك مسلم كاهي تريننج كلا وكورس وقفك مسلم كي تدريب كقاطه تدريب كاسي كو وحصلينا يا إنه أسكع إسكع مايرو قال لماذا يو ذنوب تودمي ونجاسة القلب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بإلهية المامي قلبي واحد حالي ما كانوا يكسبون أسكع جوردن إنه قفكو إسكع مايرو وهو حكوا هذا
waa marka labaad ee naar inuu ku xoroobo, waa marka saddexaad ee inuu ajar helo, waa marka saddexaad ee waa bil uu tagyiirkaba suurtageliyay qofka muslimka inuu noloshiisa bedelo. waxyaaba bini aadamka ugu adag ee noloshiisa ka mid ah cunooyinkaa ka mid ah, cunadaadii baa la raray, wakhtigaad wax cuni jirtay iyo wakhtigaad seexan jirtay iyo wixii oo dhan baa la bedelay. idan haddii waxyaabihii fastka ku ahaaba la bedeli karo, everything noloshaada ku tacalluqa waad bedeli kartaa. You can change. balwad ha noqoto, caada xun ha noqoto, dembi ha noqoto, wax kasta oo nolosha ku tacalluqa. waxay yidhahdaan culammadu bisha tani waa shahrun litagyiir gebigeedba. waa systemkaaga nololeed oo dhan inaad dib u hufto, balaan cusub inaad degto oo ah saad u xoroobi lahayd ee naf iyo shaytaan uga xoroobi lahayd. walidaalika baa waxaa la bedelay wakhtigaad wax cunaysay, waxaa la bedeloo la cidhiidhiyey wakhtiyadii, waxaa la kordhiyey wakhtiyada cibaadada. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam acmaal gaaraa jirta uu bishan inoo sii tilmaamay, waa kuwa ugu culus ee traininka lagu qaato. traininada ugu culus kow dee isaga waa ramadaan, waa wada garanay, iyada in la soomayo waa garanay. waxyaabaha ugu culus ee bishan la qabto waxaa ka mid ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa bishuu malakul jibriil qur-aanka la daraasayn jiray. malakul jibriil baa u yimaada, nebi maxamed iyo malakul jibriil baa waxay daraaseeyaan kitaabka alle, ilaahay hadalkiisa. idan bisha tani bay culammadu yidhaahdaan waa bilu qofka muslimkii u xidhxidho inuu ku tadabburo ilaahay kitaabkiisa oo fahmo ilaahay muxuu nolosha ka rabaa inaan sameeyo. waa aakhir wathiiqa samada ka soo degta oo bini aadam lagu saxayo, aakhir hidaaya, absolute value bini aadamka loogu talagalay noloshiisa oo dhan inuu ku balaangaraysto. ka waran madaxweynaha waddankani ama ra-iisul wasaaradda waddanku hadday waraaq kusoo dirto maalin walba aad akhrida laakiin weliga aanad fahmin, maxaa lagu odhanayaa? qoftee yaraa khabal wax u dhiman yihiin baad u ekaanaysaa. waraaq adiga dantaada ka hadlaysa oo kuu soo degtay oo aada gacanta ku haysato oo weligaa aada akhriyaysuuna aad fahmaynin. inaynu qur-aan dhan fahamna daaye faatixadaynu fahm weyne, maalin walbana 7 jeer akhrino. idan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam bishan wuxuu mudnaan gaara siin jiray qur-aanka iyo akhriskiisa, qur-aanka iyo daraasayntiisa. walidaalika baa culammadii waaweynayda muslimiinta rag ka midi xataa culumta kale ay dhigi jireen way joojin jireen. ragga badh baa culumta kale ay dhigaan oo dhan. imaamu maalik oo u soo xidhxidhan jiray xadiidka nebiga siduu u dhigayo, waxay dhahaan bisha tan culamo badan baa cilmiga kaleo dhan joojin jirtay oo waxay odhan jireen bishani waa bishii qur-aanka. akhriskiisa badiyaan. imaamu shaaficiya waxaa laga sheegaa dee waxaynan inagu hawaysanaynin inuu bisha 60 jeer qur-aanka dhammayn jiray soo naqliyaan. idan bishani waxa koowaad innagana waxaa laga yaabaa imaamka jis ku tukiya in la yidhahdo masaajidkaas waa masaajid salaad badan oo muxuu sameeyaa jis qur-aan uu ku tukiyaa. waxaa laynaga rabay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam habeen buu salaad galay, dabeetana saxaabi baa u yimi wuxuu yidhi iskaga xidho, waa kan dee nebigiiba tukanayay, waa ku xidha. dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam faatixadii markuu ka baxay buu albaqara bilaabay. waxaan sidhi buu yidhi dee kolley 100 aayadood meelahaasuu akhriyi doonaa. waa dhaafiyey, albaqaroo dhan buu dhameeyey buu yidhi waa 286 aayadood, waa 2 jis iyo dheeraad. albaqaroo dhan buu nebigu dhameeyey buu yidhi. haddana albaqra marka uu dhammaynayey ayaan sidhi buu yidhi bes dabadee hadduu rukuuci doonaa, suuratu nisaa buu bilaabay buu yidhi. markaasuu iyana dhameeyey buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. markaasaan sidhi buu yidhi hadduu iska rukuuci doonaa, markaasuu aali cimraan dib ka bilaabay buu yidhi. haddana suuratu aali cimraan buu dhameeyey, waa 5 jis iyo dheeraad ayuu hal ragca akhrinaya. intaa waxaa ka mudan weliba wuxuu leeyahay aayad cadaab muu soo marin ilaa ilaahay buu ka magan gelayay, meel tasbiixa muu soo marin ilaa wuu tasbiixsanay. yacni qur-aan la leeya maahayn, qur-aan lagu tadabburayo la fahmayo wuxuu sheegaya laga jawaabayo oo ahaa.
isagoo salaada ku jira markuu tasbiixaad iyo xamdalo soo maro uu tasbiixsanayay markuu soo maro cadaab iyo wax la mida uu ilaahay ka magan galay markuu nimco iyo janno iyo wax la mida soo maro uu rabbigii weydiisanayay hal ragco ku tukaday hal ragco ayuu shan jis iyo dheeraad akhrinaya xawaali idan nabigu calayhi salaatu wasalaam ramadaantii u dambeysay 2 jeer buu la dhameeyey qur-aanka daraasadiisii uu la dhameeyey kuma malakul jibriil idan bishatani waa bilu qofka muslimkii u xidhxidho warbal ilaahay warkiisa fahmarta rabbi waxa uu kuu sheegayo rabu samaawaati walard ayaa adiga kula hadlaya bidaatik dadka qur-aanka markay akhrinayaan cid kale ka fakaraan cid kale ka fakarin adigun baa ilaahay la hadlaya qof walba gaarkiisa loola hadlaya waxyaabaha bishatan uu aadka u qaban jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam ama muslimiinta uu faray waxaa ka mid ah dee qiyaamu leylka taraawiixda salaada badan ee la tukanaya inaad salaadaha badsato waxyaabaha la isfaray waxaa ka mid ah bishatan aadka loogu dadaalayo oo uu nabigu samayn jiray atasaduq sadaqaadka inaynu inagu wax cunaabaynu badina inaynu dadka wax cunsiino sida awgeed ayuu saxaabigii muxuu lahaa nabigu wuxuu ahaa mid deeq badan dee asliyan baa nabiga caadadiisa waxayd weligii wax la weydiiyey maya ma odhan aduu bal qiyaas qof wax la weydiiyey aan maya odhanin weliba dadku isku mid maaha markaan dadkaba cidi kaa dhex aqoon aad meelahagaa iska joogto cidda kugu soo beegmaysay wax ku moodaysaa dee waa dad yar waa in yaroo qaraaba iyo 2-3 saaxiib ahayd aynu cid kale bay wax ku weydiinaysa laakiin ka waran haddaad dad madaxdood tahay oo weliba aanad askar iyo cid ku ilaalisa lahayn oo weliba hadduu madaxweynuhu 5 salaadood halkan inagula tukado oo cid dadka ka celinaysa aanay jirin imse qof baa wax weydiisan lahaa so qof waliba dantiisa kulama soo dhaqaaqaan isma yidhahdeen waa madaxweynihii ka waran hadduu rasuul ilaahay yahay rasuulkii ilaahay oo dadka dhex jooga oon meelna ku maqnayn oo 5 salaadood ba la arkayo oo haddana weligii wax la weydiiyey aan maya odhanin wax la weydiiyey aan qatu maya odhanin haddana isagoo sidaas noloshiisu ahayd ayaa la yidhi haddana ramadaan wa kaana ajwad mima yakuun wuxuu ahaan jiray fi ramadaan bisha ramadaan wuu ka deeq badnaa bilaha kaloo dhan baa la yidhahdaa intuu bishaa bixiyo way ka gadisnayd wax bixintiisu ka riixil mursala bay ahayd buu xadiidku tilmaamaya sidii dabayl dhabanaysa dabayl babanaysa ama dhabanaysa ayuu la mid ahaa yacni nabigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisu way furay bishatani waa bil markaa dadka muslimiinta ee takaaful ijtimaaci isu naxariistaan foqorada wax la siiyo masaakiinta wax la siiyo qaraabada la xidhiidhiyo tolka la xidhiidhiyo cid walba wax la siiyo waxyaabuu nabigu bishan samayn jiray waxaa ka mid ah iyadoo cibaadadiisu ay saa u badanto haddana bisha qayb ka mid ah dunidaba kasii go-i jiray marka horeba bisha cibaada lagu jiray haddana qayb kaloo bishan ka mida buu ictikaaf wax la yidhaahda samayn jiray 10 maalmood 20 oo ictikaafa ictikaafku waa maxay waa inuu qofku masaajidka isku xareeyo aanu dib uga bixin ilaa lidaruura inuu ama musqultigayo ama cunno la siinayo wax allaaliya wuxuu ka maarmi karo inuu ka maarmo albaabka masaajidka inaanu istaagin oo markaa masaajid gudihiisa maxaa laga qabanaya dadka badhba intay ictikaafka kusoo xaroodaan hurdo uun haddana hurdo looma soo xaroodo daad seexanaysa gurigaaga baad seexan lahayd waxaa loo soo xaroodaa in cibaadada la maximize gareeyo bishii waa sii dhammaanaysaaye 10ka dambe inaad goosato markaa the last days baad ku jirtaa 10ka maalmood ugu dambeeyana nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ictikaafi jiray marka ictikaafku macnaheedu waa maxay xaaraan iyo baabka ka kaalaya mubaaxaadkii iyo xalaashii buu ka tegayay xataa xalaal ajar looga qorayuu ka tegay oo ajar ka weyn uu raadinayay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay ninku gabadhiisa markuu u tago hadduu xalaal ugu tago ajar baa loo qoraa siduu xadiidka nabigu ku sheegay laakiin 10kan maalmooda dambe maca dumarka waa laga fogaanaya walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid baa ilaah yidhi haweenkana ha la dhaqmina idinkoo ictikaafsan baa la yidhi idan 10kan maalmood calaa'iqu dunya kullaha buu jaraya wuxuu u fasax qaadanayaa inuu umuurta aakhiro oo qura bisha ka shaqeeyo inuu 10kan maalmood umuurta aakhiro oo qura uu ka shaqeeyo
waxyaabaha bishan ku badnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah ducaa ilaahay baryadiisa walidalik baa aayadda ducada ugu khaasaysani waxay ku soo aroortay maxay fii wasati aayaati sawm waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyu'minuu bi aayaadkaasi kadib baa walaa tubaashiruhuna waanta aayaadka dambe ictikaafkii ka warramaya soonka aayaadkii soonka kalena waa ka horeeyaan idan waxay dhexda ugu jirtaa maxay waxay dhexda ugu jirtaa ramadaanka walidalik baa culamadu waxay dhahdaan waa astaan tilmaamaysa khusuusiyada ay dacwadu baryada ilaahay leedahay bishan gudaheeda haddaba ayuha alaxiba ilaahay wuxuu ina leeyahy waan tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun kuwii cudurdaarka la siiyey ayaa haddana waxaa la yidhi wacala aladiina yutiiquunahu fidyatu طacaamu miskiin markii la yidhi ayaa haddana waxa yidhi waan tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun adigoo cudurdaar haysta haddana waxaa la yidhi waan tasuumuu soonkaa idiin khayr badan haddaa wax garanaysaan baa ilaahayna leeyahy subxaana wa tacaala haddaa wax garanaysaan haddaba ayuha alaxiba warkaygu wuxuu ku kooban yahay bisha tan soo socota in shaa allahu tacaala diyaargarowgeenu ha noqdo sidaynu ilaahay ugu noqon lahayn rabbi ugu xidhmi lahayn aakhiro ay u noqon lahayn taargetkeenna ugu weyn iyo saynu cadaabkeeda uga badbaadi lahayn janno ilaahay u weydiisan lahayn oo u geli lahayn bisha tani markaa ha noqoto daal badani waa inuu kaa muuqdaa oo ah fa idaa faragta fansab ilaahay taacadiisa iyo cibaadadiisa inaynu ku daallo ee bil kaslaamnimo badan ay naga muuqato laziness bil aynu qaadna maaha bil dadku caajiso waan soomanay qof walba idhaa nafta ka sii baxdo ee waa bil aad u baahantahay waa tababarbaad galaysaaye 11 biloodoo dambaad usii sahay qaadanaysaa 11 horena dembigoodaad iska maydhaysaa waa bil aad usii saha qaadanayso cafaariiddii waaweyneyd ee abaalisadii baa lagugu soo dayn doonaa markay dhammaataye si aad isaga celin lahayd haddaa trainingka ugu sii jirtaa ibliisaanu dibkuugu duufsan lahayn iyo kooxdiisii idan haddaad bisha lafteedii dayacanto dee waad wada dayacmaysaa saa awgeed buu nebigu wuxuu leeyahy man xurima khayruha faqad xurim ama uu aamin u leeyahay jibriil oo leh ninkay ramadaan usoo gasho fansalakh oo ay dhammaato walam yugfar lahu uu leeyahay afka ciidda ha daro nebi maxamedna waa aamiin leeyahay ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inta gaadha bishatan ee asiibtee ka faa'iidaysata ee ilaahay ugu dhowaata in rabbi inaga yeelo sala allahuma calaa muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam alxamdu lilah rabbi العالمين